ويا أرجع قانون لو دمد الدنيا الشهادين وافية ودرتوت كايستوس اللي وبي بتاعي دردورة بيها وذا علم السؤال ولا ودن كين تشوفه ورميات كايسان وهالي ورابا هدو الدنيا والرور ملا له تشوف سلك عجوابنا يه لي مشي ودنيا هدو وعقلك هلا وهن سيدي تبكم ملا هوان السجاوة عذا وحلقه تشوف سلك ورابنا يه أختي كورايه ويا أرجع قانون لي وكنه waxaan ka socdaa shirkadda Safco la yiraahdo Safco waxa weeye shirkad weyn oo international ah oo dabdamiska khasasi ku ah dabdamiska ay aad iyo aad khabiir ku yihiin sidaa darteed annaguna waxaanu jecelnahay inuu halkan ka sheegno shirkadaasi waa shirkadda kaliya ee ku habboon in mataqaanaa ay dabdamiska alaabteeda ay wasacdo ama ay qaybiso kuna qaybiso mid waliba meeshay ku habboon tahay dibna loo repair gareeyo dibna loo cabeeyo shirkadaasi Safka la yiraahdo Safkana waa xawee waxaad ka heli kartaa meelaha Hargeysa hore loo tilmaamay ayaad ka heli kartiin telefoonadana waa la idin sheegayaa laakiin waxa weeyaan suuqa gobonimo ayay ku taalaa dariiqa 150 ka halka iska galaan ee dhow magaca ma adeeganaysaa Safco waxa weeye shirkadani waa international maaha shirkad cusub oo dhawaa soo degtay maaha waxa weeye weligeed way jiraysay ilaa 2010 bay jirtay laakiin dadkan garanaynin ayaa maanta loo sheegaya oo waana la barayaa sida traininka asaasiga ah ee dabku ka kaco shirkadu waxay qabataa laba shayba way qabataa alaabada way iibisaa waanay cabaysaa markay ka dhamaato talabaadna training bay bixisaa alaabadu waa alaabada dabdamiska ee haamaha dabdamiska kuwa fudud marka hore kuwa waaweyn waa la hayaa dabdamis oo dhan noocu doonahaade ama kuwan alarmka sheega ama kuwa qiiqa sheega waxa soo dhan waa la hayaa marka talabaad waxaan doonaynaa dawladda hoose in building kasta oo ay dhisayso in la raaciyo dabdamiska halkii ugu habboonayd qofku halku ka heli karo baashiisa oo ku baqtin karo yaan aad ugu codsanaynaa inaan la iska dhisin haamuhu waxay u qaybsamaan waxa weeyaan ilaa 3 bay u qaybsamaan waaweyn imika ahaan mararka qaar ku 4 bay u qaybsamaan laakiin halkani waxa ku habboon inaad ogaato horta maxaa gubanaya waxa gubanaya inaad ogaato meesha sida ay tahay waa inaad intaaba horta ogaataa waxa weeyaan haamuhu mid waa biyaha oo ugu horeeya oo waxyaabahan albuxusha reebayn ayaa xaabadu ay ka mid tahay maryuhu ka mid yihiin waxaasoo dhan baa lagu baktiyaa talabaad waxa weeyaan powder baa la yidhaha waxa la wixii subag ah ama dareera ah ama dhiisal ha noqoto ama xaydh ha noqoto waxay doontaa ha noqoto ka yimid asalkiisii hore حيد أما صبغ نقول بس إذا دونا هوقاته أما بترول يا وحي كي بيتباع بورنر خالقو بختي كرا طلبات CO2 باليرا وبهال علامات وكل علامتيه مدول بعلامات مدو بيلا هاي تاسي وحويان ميل حيران أيا لقو استعمال كرا كواس ديبت لقو ما استعمال كرا وايوا هو فايدة ذا وجوه الرئيسة واحد هاي وانا بختيسا وانا قبوجيسا وحي قبنيي ايي برف كدغيسا سدا درتيد 3 دابا ugu important horta imika ahaan wixii aanu wadno ee shirkadani wado bahalahaas pressure bay ku shaqeeyaan ku jira gudaheega lagu cabeeya cabayntaas markaad sidaa u qabato oo niditusi doono training baan bixinaynaa bahalu waa kuwaas oo kale oo nooc ah waxa weeyaan waa kuwa first aid ka la yiraahdo inta ugu horeysa intaan dabdamiska weyn iman ayaa lagu sii baqtiyaa sometimes dabdamiska ma baahanaysid haddii aad kuwa guriyahaaga dhigato kuwa sibaad qaabanaysaa waad ku baqtiinaysaa taana training baanu ku bixinaa ninkii doonaya bilaash baanu ku siinaa oo trainingka laakiin waxaanu tusnaa sidaa u baqtiinayo gurigiisana inuu qaato haantaasi hadday dhamaataba ama bowdhar ha noqoto ama biyo ha noqoto waxa la wixii idinka dhamaada shirkadaad ku soo celinaysiin shirkadda idin cabaynaysa
shirkadda wixii ku habboon meesha ku habboon iminka guri meesha aad ka qabanaysid ma taalo extension waana computer baa yaala waxa yaala aalab electronics waxa weeyaan tii ku fiicnayd baan dusaynaynaa oo nidha haddii iminka waaxid waa wayro overheat baa ku dhici kara haddii overheat ku dhaco dee wixii aad ku baktiin lahayd ay munaasibka ahayn adigana wax ku yeelay meesha qarribaynin ayaanu ku dhigaynaa halkaa specialist firefighting amba badbaadada dabka waxa aan gudoomiye ka hay shirkadda la yiraahdo Saafco bariga Afrika laana kule Somaliland capitalkeeda iyo Hargeysa haddahan shirkadda Saafco badbaadada dab waxay isku taxawulsaa ka hortagga foojignaanta iyo baraajinta dabka laba baktiintiisa marka hore waa ka hortagiisa marka labaadna waa baktiintiisa waxa laga hortagaa qalab aanu keenay oo hore u jirin dalka oo af Ingiriis lagu yiraahdo alarm af Soomaaligana lagu yiraahdo qayliso waa aalad qaylinaysa marka ay dareento dabka qiiqa iyo gaaska waa aalad lagu rakibin karo guriga ganacsigaaga iyo baabuurka waana aalad laga maarmaana oo sheegaysa tilmaamaysa meesha inuu dab jiro halisna ay taala meesha ka soo qaad dabka marka uu gaaro aaladaas waxay sheegaysaa markuu 60 degree kuleelku uu gaaro ila qayliso cidii u dhaweyd markaas ilaa taasoo alarmkii baa dhacay waxa uu la soo boodiyaa hanti amba dhiishi sidciyo amba sawaadhoor amba gargaar aan u bixinay oo iyo dabka baktiisa waxyaalaha aan meesha ka soo sheegay oo dhan waxa waliba u raaca haday tahay yani foojignaanta amba alarmka iyo haday tahay baktiintiisa dabka oo lagu haamaha lagu baktinayo wax hore aan u jirin oo aan dalkan u daadahayna kadib markii waxayna dhacday waxa weeyaan in qalabka la isticmaalaa laakiin dayactirkiisii iyo repairing wax kasta wada way jabaan ama marka la isticmaalo mid haamaha oo kale marka ay lagu baktiyo dabkii waa faaruqayaan marka wuxuu baahan yahay in la buuxiyo marka warshad baanu keenay refilling la yiraahdo amba si dib u cabaynta haamahaas oo saddex u kala kaca mid CO2 wala waxa gaas aan la arkayn oxygen ka qabata dabkana curyaamisa marka taas hadda goor wuxuu baahan tahay in meel xiran lagu isticmaali karo sida roomamka oo kale ay computeradu yaalaan amba yani waxa yani dabka qoraan ka dhacay laakiin waa meel xiran ay maartay lagu isticmaali tukale ABC baa la powder weeyano waa budo marka iyada laftigeedu way baktiinaysaa xitaa kooraka way baktiinaysaa laakiin dhibaato waxa weyn buday kaga tagaysaa meesha ta kalena waxa weyn waa water oo isaguna biyo weeyaan additive lagu chemical waa lagu dari karaa in waana dabka ka dhaca yani qoryaha amba yani waxa la wixii dhuxul kreebi kara sababta dhuxushu raran bay keenta rarantu waxa weyn markuu dabku uu baktiyo dambasba fuula marka haddii tan gaasta lagu ku isticmaala waxa dabku wuxuu ka hooseeyaa dambaska saaran marka ma baktiin karo laakiin biyuhu way baktiin karaan rananka oo marka hoos laga soo way baktiin karaan marka taasi waxa weeyaan tabiyaha ku socota tii kale waa tii baadhur ku socota kale waa CO2ga marka dardaaranka maaragtay aan meeshan wadna waxa weeye tiyo aan jecelahay in dalkayagan iyo dadkayagan arrinka ugu weyn wax barasho in la baro in qof kasta oo dhiishaas naga iibsada ama haanta naga iibsada ama alarmka naga iibsada inaanu diyaar u nahay in aanu baro marka labaadna markuu isticmaalo aanu diyaar u nahay warshadeedu tahay in ay dib ay u camirto haddaba yaa lala kaashanaya sidii oo kale waxaanu maaragtay yani baclamaada hawl qaran ay tahay aanu ku jiro oo wax dabku yahay wax aan cidina yani aan amaan gelinin daliyo dunyaba deeyaanu la kaashano oo xukuumadii iyo madcadii qaranka aan la kaashano si maxay aan dadkeena ugu baraarujino war halista dabku uu leeyahay dabku waxa weeyaan waa cadow kugu soo socdo aan arkayn marka wuxuu leeyahay fujinaantiisa wuxuu leeyahay yani adii kibli yani kala tilgiisa waxaad kaga qayb galaysaa ku maartay
ku baktiinayso waxa kale oo aan la kaashanay mashruuca isaga waa mashruuc weeyaan ujeedadii iibiyo maaha laakiin dadka wax ku beeriyay weeyaan kadib markii khasaarihii dhacay waaheen waxa weeyaan inaan la kaashano hay'adaha dawladda laba hay'ado waaweyn baa jira hay'adaha dawladda hoose oo wallahi dadaal badan oo ku muuqdo dalka maartay diikibli yani islaam maartay ay maamuliso hay'adina waa dawladda dhexe marka hay'adda dawladda dhexe ee hoose waxa weeyaan waxaan la xidhiidhnaa aanu tababar siinaa dawladda hoose iyo maxay waaxdeeda qaabilsan masuubooyinka waaxdeeda qaabil masuubooyinka kadib shir aanu la yeelanay waxaa ka soo baxay inaanu tababar siino bilaash oo lacag la'aan ah ilaa dhowr iyo 10 inspector oo saraakiil ka tirsan dawladda hoose oo aanu baray dabka wuxuu ka kaco academic iyo professional si loo baqtiin lahaa dhawaan baanu bixin doonaa maartay xaflad baanu sameyn doonaa anagoo waliba iskaashi la sameeyay jaamacadda la alfa oo iyadu kulliyad la engineering oo aanu ku dhigi doono waxyaalaha dawladda hoose ay u baahan tahay oo dhan in matalan guryaha marka la dhisaayo planga lagu dhisaayo la soo raaciyo يعني دبدمتي يعني كجتلكيسي سيدا لو سو راعيو كورانكا سيدا لو سو راعيو بيها marka la siin ma accreditation marka inay si dawladda hoose waxa iman doonta tii jaamacadda la kaashanayno kulliyadda engineering in aan digriyo bixino dharna la siiyo dhalintaasina shaqo ka helaan guryahan bilyanada lagu dhisaayo dollarna ay ku nabad galaan oo dabaltan gurigii foundation ka marka laga soo bilaabo la soo raacinayo khasabadihii baqtiinay ilaa room kasta sprinkler lagu rakibay ama si deluge ama si hab panel ku markuu dareemo sensors ku ay dareemaan dabka ay dareemaan in isbaqtiyo gurigaasi automatically waa ta soo socota ee guryaheena dhaadheer ee hargeysa laga dhisay bacda ku soo horeysay quruxda moodo laakiin halistii u baahan yihiin in kuwa soo socda loo sameeyo yani hab ay ku nabad galaan guryahaasi kuwan imika taagana shirkadda saafka waxay ballan qaadaysaa inaanu isticmaalo plan B program lagu talaalayo oo bamkii iyo panelkii iyo hadii lakii yani detectorkiiba in lagu rakibayo marka de wakaasi su'aal fiican weeyaan waxaan ku yiri dalkan waxaan joognay ilaa 2010kii laakiin dormant man af ingiriis waxa la dormant waa company hurdaan ahayn duruufaha qaarkood laakiin imika kadib markii ay waahayn dhacday halkii hore ku naalay waa meesha gobonimo dariiqa cusub ee ku dhaca 150ka shirkadda waxa la buildinga Samex balada waxa la suuqa maartay rooda leedah ay ku magac dheer yahay waa halka warshadu ku taalo iyo refillinga iyo dayactirku xafiiskaygu wuxuu ku yaalaa tog dheer in farajma building cusub oo dhistay ka soo horjeeda hudheelka Suudaan marka wixii faahfaahina diyaar baan u nahay barnaamijkan wuxuu ka socon doonaa idaacadda Hargeysa ayuu ka socon doonaa 7 marir 5 marir muddo 6 bilood ayuu socon doonaa tion isdaad haysano labada hay'adood dawladda dhexe iyo dawladda maartay hooseba dawladda dhexe waxaan la xiriiri doonaa hay'adda la yiraahdo afooyinka oo iyaga laftigoodana aanu gacan siin doono telefoonkayguna waxa weeyaan 063 suuqa gobonimo warshadu halkaas ku taala dariiqa ku dhaca 150ka ka taga idaacadda dariiqa cusub ee imika dawladda hoose dhistay fooqa Somex ayaa la dhahaa halkaas warshadu ku taala wixii faahfaahina ama bas yani dayactira ama bas yani refillinga halkaas naga soo xiriiraysan telefoonkayguna line-ka waxa weeyaan waa 530102 waxa weeyaan 350 eber 1 eber 2 mobileka ka gacanta lagu siiyay waxa weeyaan 063 waxa weeyaan 386 3799